waxaan ku suganahay biyo-xireenka weyn ee sida quruxda badan loogu soo dalxiis tago misane dhalinyarada qaybahooda kala duwan maalinta jimcaha iyo waliba sidoo kale maalmaha dalxiiska waqtiga ugu quruxda badan ee ku qaata waa degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo aan idin hadlayno jimcada tani oo si weyn markaas bulshada ugu soo dalxiiseen misane waqtigooda ugu quruxda badnaa ay ku qaadanayaan waxayna astaan ay u tahay misane bidaan qurux badan ay u tahay nabadgelyada guud ee dawladeena iyo dalkeenu markaas ay ku laanoonayaan maadaama dhalinyaro qurux badan ee isugu jira gabdho iyo wiilalba waqtigooda kii ugu quruxda badanaa ku qaadanaya Shabeelle gaar ahaan degmada tani ee Balcad gaar ahaan biyo-xireenkan in badan media waan kala socday laakiin maanta waxaan ahay markhaatida nool ee dhex jooga biyo-xireenka weyn ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana sidoo kale isugu imaadeen misana markaasi waqti qurux badan ku qaadanaya dhalinyarada noocyadooda kala duwan iyagoo aan markaasi si weyn aragtidooda iyo waliba sidoo kale yoolkooda ku aadan nabadgelyada iyo waliba sidoo kale damaashaadka halkan ku qaadanaya kaaba si daran waxa kale oo halkan si weyn iyana markaasi loogu sii xusaya sanad guurada Hirshabeelle oo ku beegan misana maalmo kaliya qura ay markaasi inaga xigaan waxaana si guud ahaan looga arkayaa in dhammaan dadku ay ku labisan yihiin calanka Hirshabeelle bulshada halkan u soo damaashaadka tagay ayaan mikrofoonka Somaliland TV la dhax qaadnay iyagoo markaasi aragtidooda iyo waliba sidoo kale farxadaha dareenkooda ku aadan dalxiiska markaasi nooga warbixin muddo dheer aan sugnay meeshaan ka soo qayb galay haddana waa xalfadii Hirshabeelle ay qaaday markii doortay 5 bishii Oktoobar waa berito laakiin maanta soo dhaweynaa waa maanta maalin oo maartay ma sha Allah damaashaad saa'ida waxa bulshada dhan oo Soomaaliyeed ah maanta ka soo qayb gashay oo kala sooc lahayn waxaan leeyahay soo dhawaada Hirshabeelle soo dhawaada biyo-xireenkeena Balcad waayahay Balcad inta badan dad fara badan kaliya oo media ka arko bal haddaad sharaxad guud ka siiso biyo-xireenka sida ugu quruxda badan dhalinyarada san waqti ugu qaadanayo Balcad waxa meel amniya waa meel dalxiis waa meel dad isjecel yihiin Balcad waa sidii haajirtay hal say taalo kala tahay biyo-xireenka ma sha Allah bas waxay u baahan tahay wadada loo dhisay u baahan tahay gudoomiyaha aan leenahay wadada noo dhis sida dalxiiska oo si weynaado ay meeshaan u qurux badnaato وسيدنا هدان هيركو دالكو هرمودان همبليا وسيدنا هدان هيركو دالكو هرمودان همبليا وسيدنا هدان ووجدين بريق لما كلام مغنو 5 أكتوبر شيخ يا شاب محمود عبدي محمد شريف Somaliland TV degmada Balcad gobolka Shabeellaha